munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaasina qada sharaf loogu sameeyay suldaanka guud ee gobolada galbeedka Soomaaliland Suldaan Cabdinuur Xaaji Cabdilaahi Jimcaale ayaa ka qabsoontay hoteelka Tayuub ee degmada ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley waxaana munaasabadan qada sharafta ka soo qayb galay maamulka dawladda hoose ee degmada Tog Wajaale salaadiin cuqaal iyo ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan degmada Wajaale waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay munaasabadan qadada ee ku maamuusan suldaanka guud ee gobolada galbeedka Soomaaliland qaar kamid ganacsatada iyagu maanta sameeyay qada sharaftani qada sharaf Suldaan Cabdinuur Cabdilaahi Jimcaale waxaan ku soo dhaweynaynaa isbarasho maanta ma jirto dadku way isbarteen oo is yaqaanaan suldaankii cusbaa baan ku soo dhaweynaynaa Tog Wajaale hoteelka Tayuub marti sharafta ay badan ee halka timi madax dhaqameed leh salaadiin leh saraakiil leh gudoomiye leh madax dhaqameed aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin haddana waxa weeyaan dee suldaanka waa suldaanka guud ee beelaha Jibraacin isla markaana suldaanka ganacsatada ee magaalada sida ay dee boorka ku qoran markaa suldaankana waxaan leenahay dee magaaladaadii weeyaan waa halkaad ku dhalatay waa halkii aabbaha u deganaan jiray dee waxaan leeyahay waa magaaladaadii dadkuna waa dadkaagii sida ay barasho wanaagsan sidoo kale waxayguna halkaasi ka hadlay hadalka iskaga kala dambeeyay gudoomiyaha degmada Tog Wajaale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed Hiil Walaal iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Tog Wajaale Cabdilaahi Xasan Samaale macsuumada intan leeg iyo xafladda fagaaraha quruxdan la samaysay aad baan uga mahad celinaynaa ka maamul ahaan waxa mar labaad sharaf noo ah inaanu ka soo qayb galno xafladda macsuumada qada sharafeedka hadima sharafeedka loo sameeyay maanta suldaanka Suldaan Cabdinuur oo saaxiibkaya aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkeeda keenay xafladan qada sharafta ee loo sameeyay Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi oo ah suldaan cusub oo kamid ah salaadiinta dhaqanka ee Soomaaliland suldaanka horta shakhsiyadiisa aanu intan ka arkay intan Wajaale joogay waa in aad u shakhsiyad wanaagsan suldaanku waayo xilka marka la qof loo dooranayo salaadiinta inta badan hadii la keenin lahaa qof kasta oo dhaqan wanaagsan ee salaadiinteena iyo cidda la isma qabsadeen lababa ma wada hadleen suldaanku waa in aad u dhaqan wanaagsan muddo baan wada shaqeynay ka maamul dawlad hoose ahaan iminkana aan wada shaqeynaa suldaanka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa marka horena wada shaqeynay iminkana wada shaqeey fiican baan leenahay cidii soo qaban qaabisay xafladan aad baan uga mahad celinaynaa annaka oo ah marka baxda maamulka magaalada suldaankuna wuxuu ka mid noqonayaa golaha dhaqanka ee magaalada gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay oo ka mahad celiyay munaasabada qada sharafta lagu maamuusay suldaanka guud ee gobolada galbeedka Soomaaliland Suldaan Cabdinuur Xaaji Cabdilaahi Jimcaale waxana uu yiri farxad weyn bay tahay hadima sharafeedka la sameeyay aad iyo aad baan idinka gudoomay waana idinka mahadnaqayaa gudidii horumarinta ee soo qaban qaabisay xaqiiqatan guddi horumarinta hadan in yar oo faalaha ka bixiyo waa guddi ku suntan danta guud yani magaca waxay ula baxeen waa guddi ku suntan danta guud ee ka shaqeeyaan waa guddi ka shaqeysay biyo gelinta laga bilaabo laamida ilaa iyo galbeedka magaalada sidoo kale dariiqadii la sameeyay waa guddi nagala qayb qaatay xogayaha waqtiga shaqeynay wada joognay waa guddi nagala qayb qaatay dariiqadii la sameeyay dariiqii ugu horeeyay ee dadweynaha sameystay shacabka reer Wajaale sameysto guddi nagala qayb qaatay bay ahaayeen marka guddiga horumarinta aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan leeyahay aniguna markii hore idinka mid baan ahaa imigana suldaankiina oo noqday horumarka degmada iyo danta guud ee ka shaqeynana waa mas'uuliyadna oo saaran ka maamul ahaan ka oday ahaan iyo ka salaadin ahaanba waxaan diyaar u nahay inaanu maamulka ganacsatada oo anigu aan ganacsatada ka mid ahay iyo cid kasta oo mas'uuliyad ka hayso gobolka ama degmadan aanu kala shaqeyno nabadgelyada horumarka iyo wada qabsiga runtii farxad weyn bay tahay xaflad dadka inta laga isku yimaadeen oo lagu soo maamusay oo lagu sharfay anigana insha Allah waxa idin ballan qaadayaa inaan mar walba ka hadli doono oo yani ka shaqeyn doono danta ganacsatada xaqiiqatan marka ganacsatada leeyahay de waxa la arkay suldaanka hadlaya reerkayga wax lama siin
waxaa la arkayo suldaan ka hadlaya hebel ha lii shaqo geeyo laakiin hore uma dhicin suldaan ka hadlaya danta ganacsatada oo ka hadlaya caqabadaha haddaynu nahay magaalo ganacsiyeedkan degmada Togwajaale had iyo jeer waxaa jira mararka qaarkood waxyaabo caqabado inagu ah oo ganacsigeena dib u dhigi kara markastoo serviceka ama facility-ga laynoo sameeyaa ay fiicnaato waxaynu la tartamaynaa alaabaha ka soo dega Addis Ababa iyo meelaha kale markastoo barashar ina saarmana waxaynu dib uga hadhaynaa suuqa aynu challenge gareynayna waliba alaabtaniyada kontrabanku galeysay marka insha Allah waxaan ballan qaadayaa inaan danta guud ee horumarka ah iyo danta ganacsi ee ay magaalada ku magacaabantay magaalo ganacsiyeedka iyo amnigaba si buuxda wada shaqayn doono Khadar Cabdilaahi telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley